qofka maskaxda dhiig uu furo oo ku dhaco falal ama stroke taasoo hadhow dhibaato badan u keeni karta gacan inay dhacdo inuu kaadida celi waayo inuu hadalkiisa si fiican u hadli waayo shalay bulshada ku dhex jiro oo bulshada ka saaro qof sariir saaran oo ka dhigo. Assalaamu calaykum oo walaalkiin Dr. Ismaaciil Xaadle. maanta waxaan ka hadli doonaa cudurka dilaaga ee loo yaqaan dhiig karka kaasoo ummadeena dhibaato badan ku hayo. marka si aan isku fahanno waa maxay dhiig kar waxa waaye markii cadaadiska xididada dhiigga qaado uu ku bato. maxaa calaamado isku arki karaa? waxaa calaamado isku arki kartaa kow inaa madax wareer isku aragto ama madax xanuun, labo inuu qofka aragga iska laba la noqdo ama iskaga dadarsamo, saddex dhagta inuu maaragtay qaylo iyo ka dareemo iyo waxyaabo lamid ah. wax calaamad toos oo kaligiis u leeyahay oo hadda jira ma lahan. maxaa keena ama loo ayaa dhiig kar? waxyaabaha la yiraaho waa u fududeeyaan in dhiig karku ugu dhaco waxaa kamid ah in waalidka midkood ama labada oo qabo dhiig kar ama farac u leedahay ama genetic sida afka qalaad loogu yaqaano, labo in qofkii uu buuran yahay, saddex qof aan socod iyo dhaqdhaqaaq badan inuu yahay, afar qof oo cusbada waxyaaba ay ku jirto badanaa cun inuu yahay qofka, shan inuu qofkii yahay qof aan controlin dietkiisa oo cuntooyinkan fast foodkii u badan iska cuno, ama lix inuu balwad leeyahay sida sigaarka, jaadka iyo wixii lamidka ah oo isticmaalo balwadda. sidee marka ugu hortagi karaa haddaan qabin? waxa ugu hortagi kartaa haddaad qabin dhiig karka qofka wiigii ama isbuuciiba mar inuu isbuucii 3 jeer inuu alamiteeyo, in uu qaato cuntooyinka cusbada ay ku yartahay ama cusbada oo ka dhaafo cuntadiisa, in qudaarta cagaaran iyo fruitiska inuu cuno ama fawaakiha qofba si u yaqaan, ama qudaarta miraha leh inuu cuno iyo qudaarta cagaaran intaba. waxaa kale oo qofka ugu hortagi karaa dhiig karka in biyo badan uu cabo. waxaa kaloo marka muhiim ah qofka qaba maxaa u muhiim ah haddaad qabtid marka maxaa muhiim ah qofka qabo dhiig karka waa in kow sida hadda aan soo sheegay waa inuu saxa asina cuntadiisa, cusbada ku yareeyaa, dufanka ku yareeyaa, alamiteeyaa, daawadiisana oo qaata sida dhakhtarka uu qoray. waxaa ogaataa cudurkan waa cudur dilaay ah oo waqti dheer nala noolaanayo, marka daawadiisa waa in sida dhakhtarka uu kugu qoray u qaadato. intaas marka uu gudbno dhiig karka iyo daaweyntiisa waa maxay marka caqabadaha ama dhibaatooyinka uu leeyahay qofka dhiig karka qabo haddii daawooyinka oo sax u qaadan? waxaa la ogaaday research la sameeyay dadka daawooyinka si sax u qaata inay ka badbaadaan waxyaabaha hadda aan sheegi doono, halka dadka aan daawada dhiig karka sax u qaadan ee dhibaatooyinkan ay la noolaanayaan mustaqbalka, kuwaasoo ay kamid yihiin kow inuu qofka maskaxda dhiig uu furo oo ku dhaco falal ama stroke taasoo hadhow dhibaato badan u keeni karta gacan inay dhacdo inuu kaadida celi waayo inuu hadalkiisa si fiican u hadli waayo shalay bulshada ku dhex jiro oo bulshada ka saaro qof sariir saaran oo ka dhigo. labo qofka keliyihiisa inay fadhiistaan taasoo qasbaysa ama sababaysa in keliyihiisa la dhaqo. saddex wuxuu sababi karaa qofka in wadnihiisa ama dhibaato u geysto sida inuu wadnaha heart failure ku rido. heart failure waxa waaye markii wadnaha xididada wadnaha dhiigii uu shubayay jirka uu shubi waayo ama uu kii waayo, ama wadnaha istaag qofka hal mar soo u joogo dhiig karka inuu ku dhufto oo wadnaha istaajiyo, ama wadna garaac aan sidii loogu talagalay ahayn, ama garaaci wadnaha inuu yaraado ama inuu bato inuu sababo dhiig karka. haddaba maxaan kugula talin lahaa? waxaan kugula talin lahaa walaal haddaad qabto dhiig karka in daawooyinkaaga aad qaadato oo dhakhtarka kuu qoray, waxyaabihii taladii caafimaad aan ku siiyo ah oo looga hortagayay ma lagu yareynayay qofka qaba iyo qofka aan qabinba, oo u muhiim tahay in uu alamiteeyo ama uu daawooyinkiisa cuno ayaa muhiim ah. marka ku dadaal in noloshaada aad saxdo, waxyaabaha cunaysa aad iska saxdo, daawadaadan dhakhtarkaaga oo qaato. sida marka lagu ogaado qofka dhiig karka qabo, sidee marka ku ogaan karaa dhiig kar inaan qabay in kale? waxaa ku ogaanaysaa dhakhtarkaaga booqanaysa ama gurigaaga isku cabiri kartaa. sida normalka cabirka dhiig karka waa 120/80. hadduu ka bato 140 90 waxaa la dhahaa dhiig kar waa halka dadka waaweyn qaarkood ay normal u tahay, laakiin waxaa fiican qofka 3 jeer ama jeer hadduu guriga ku baaro iska shakiyo inuu dhakhtarkiisa tago, kadib asiga ayaa kala tali doono. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.